Ero waxaa dhacday 25 August 2004 waqti maqribnimo ah oo about 7 o'clock UK marka la yahay wuxuu ka soo degay airport ku yaala London. Ninkaas wuxuu la socday diyaarad. Waxyaabaha cajiibka ah ka yaabiyey newspaperada UK raga qora reporterska ah waxyaabaha ka yaabiyey waxaa ka mid ah ninkaas keliya ayuu diyaarad ka soo degay. cid ilaahay abuurtay oo la socday ma jiro. Markiiba waa la qaaday hudheel la yidhaahdo Royal Line oo streetka ku yaala waana Hiltonka hudheelkaasa la geeyey. Marka dadkan laga dhaadhicinayo isbeddel baanu doonaynaa. Horta isbeddelka waxaa keenay wejiyo cusub, aqoon cusub, siyaasiyiin cusub. waa shacabkan iyagaa qolooyinka u samaynaya. Wax garxajis la yidhahaa ma jiraan, wax beesha dhex la yidhahaa ma jiraan. Waxa weeyaan dadku waa isku mid, waxbay wada doonayaan, midnimay doonayaan, inay calan madax bannaan helaan bay doonayaan, inay dalkooda u madax bannaanaan bay doonayaan. Maalin dhaweyto oo imika ay kasoo few weeks aan badnayn ay kasoo wareegteen niman odayaal ah oo xisbiga haysta wadani ayaa waxay tageen magaalada la yidhaaho Nairobi. waxay saxaabtacay waa cabdiqaadir shirde waa maxamuud aadan galaal waa cismaan fadalo iyo nin kale oo aanan magaciisa sidaa u garanayna marka xasuusnay bal reer somaliland oo nimanka codka idin weydiisanaya waxay la xiriireen wax ka badan 25 ilaa 27 safaaradood oo Nairobi ku yaal waxaanay u qorayeen waraaqa isku mid ah waxaana la galeen mitna gaar nimankaas sida loo bahdilay ee caalamka u bahdilayaan ama safaaradahaas u soo bahdilayaan. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhowaada qaybtii labaad oo ah waraysi sire iyo xoga qarsoon soo bandhigaya oonu la yeelanay ciise maxamed yuusuf oo hore u soo noqday xogayaha dhaqaalaha ee xusbiga waddani 2017 sidoo kalena kambayn maanajerkii gobolka togdheer ee xusbigaasi waddani 2017 ahaa isagoo laga soo bilaabo 2017 markii uu dhacay xusbiga waddani intaasi wixii ka dambeeyey wuxuu ahaa la taliyaha arrimaha dibadda ee xusbiga waddani iyo xubin sare oo ka tirsan xusbiga waddani dheer kale ciise maxamed waa khabiir la soo shaqeeyey hay-ada caalamiya isagoo intii uu ku jira shaqooyinkaasi oo uu u joogay magaalooyinka nairobi muqdisho iyo jabuutiba la kulmay arrimo xusbiga waddani uu halkaasi ka maleegayey ciise ayaa dhowaan xaflad ka dhacday magaalada london oo uu qabsaday xusbiga waddani ku shaaciyey inuu ka baxay xusbigiisii hore ee waddani kuna biiray kulmiye haddaba ciise maxamed sida uu sheegay sababta ku kaliftay inuu iskaga casilo xusbiga waddani wuxuu ku sheegay kadib markii uu ogaaday sida xusbiga waddani iyo madaxdiisa u khiyaamanayaan qaranka iyo shacabka somalilan isaga oo halkan kusoo bandhigi doona taxane uu ku qaadaadhigayo shirqoolada uu xusbiga waddani qaranka hore ugu soo maleegay iyo kuwa uu hadda ku howlan yahay ee uu markhaatiga ka ahaa ciise maxamed yuusuf ayaa khadka telefoonka kaga jira london waddanka ingiriiska isagoo soo bandhigaya qayb kale ciise maxamed yuusuf waan ku soo dhoweynaynaa kolley bulshada sidaan u ballan qaadnay waxay kaa sugaysay inaad halhal usoo bandhigto xogahaad hayso markaa waan ku soo dhoweynaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. cabdi wahaabu waan ku salaamay walaal adiga iyo tv-ga xogta qarsoonba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wacan aad qaranka ugu shaqaynaysaan tv-giina xogta qarsoon. maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo qaybtii labaad wanigii hore ballanta aanuu galay aan kugu yiri step by step baan soo deynayaa marba in baan soo deynayaa hadduu alla ka dhigo wixii aan information hayo ama xog qarsoonan hayo waxa igu kaliifay inaan keliyadan aan soo daayo ama warbixintan xasaasiga u badan inta badan inaan shacabka reer somaliland usoo gudbiyo waxaa igu kaliifaya shacabka waxba mooga waa shacab daacada waa shacab aad u wanaagsan waa shacab doonaya inuu dalkoodu hagaago marka dadkan laga dhaadhicinayo isbeddel baanu doonaynaa. horta isbeddelka waxaa keenay wejiyo cusub, aqoon cusub, siyaasiyiin cusub waxyaaba noocaas ahaa keena oo planning la sameeyo oo ah manifesto bug la qoro oo mashaariicdii lagu qorolayo waxaasaan bedelaynaa dadkii bedeli lahaana lasoo diyaariyo. waxaan shacabka reer somaliland u sheegayaa 2017 doorashadii dhacday ee waddani galay dadkii u shaqaynayey dadkii mas-uuliyiinta ahaa
maxaan ku idhahay dadkii xisbiga waday ee waktiga badan geliyey ee ku tabcay waxba kama joogaan. nimankaa meesha haysta ayaa ka jooga. kii joogana waa mid tegey oo lasoo celiyey. ragga iminka yimi waynu garanaynaa. anigu markii aan ku idin leeyahay waxaan ka shaqaynayay burco gobolka togdheer oo aan ka kaambeyn garaynayey intii dagaalka nagula jirtay ee sheegaysay inuu xisbiganu aanu daacad u ahayn somalilan oo aanu daacad u ahayn midnimada somalilan intii nagu lahayd ee aan markaa ka diidanin ee aanaan xisbi dhexdiisa uga maqan sheekada ah ee aanaan la soconin ee nalaga qarinayey raggii ku kaambeyn garanayaa maantana ku kaambeyn garaynaya waddaniga iyo isbeddel baan keenayna. waa niman ku fashilmay shaqadii loo diray. waa niman qaranku shaqo siiyey dowlad hore iyo mid joogtaaba. qof mid ka midihina shaqadiisii qabsi kari waayey. waa niman hunguri doonaya bajetka dalka inay baad ku cunaan, in la laalusho, inay mashaariic kasoo qurtaan malaayiin doolara. mashaariic malaayiin doolara cidinama bixiso. qaar baa ku dalagaalamaya db wall ayaa wax nagaga maqan yihiino mashruucaa lagaga qaadayo wixii reeraynaya ma jirto. nimankan waxaan idiin sheegayaa reer somalilandow waa laba gruub. waa kulmiyii hore waa waddanigii hore iyo waddanigii dambe. waddanigan dambe waa failure. waddanigii hore waxa ka joogaa waa failure. waxa weeyaan labada qolo waxay ku kala duwan yihiin. qolo waxay doonaysaa kuraasi, waxay doonaysaa hantida ummadda meel ay ka boobaan oo ay jaanis uga helaan. waxay dana gaaray wataan. qolana waxayba doonayaanba inayna majaxaabiyaan oo midnimadeennii aynu ku soo dhimannay, waktiga aynu ku soo jirnay, intaasoo sannadood soo samraynay, indikeeshkeenu kacay, economic ahaan aynu u kacnay, environmentka aynu u hagaagnay, inay baabi'iyaan. raggaa waxaa ugu horeeya mid ayaan u taaban doonaa. ninka la yidhaaho maxamed cabdilaahi cumar wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan. wasiirka markii jagada laga qaaday wuxuu u wareegay africa. ergey igadu ahaa oo ku saabsan mushkiladaha igad haysta xalintooda departmentka qayb qaata inuu ka shaqeeyo. ninkaasu waa ninka u sabab ahaa inuu isku xidho number one waddani iyo soomaaliya. dowladda soomaaliya jirta hadday tii farmaajo tahay, hadday taxadar xasan sheekh tahay. waa ninkii ugu horreeyey ee connectionkaas sameeya ayuu ahaa. marka maadaama uu caynkaa yahay imika waa budget baa la siiyey. heshiisyadan imika ay somalilan la gashay mouda waxaa la dagaalamaya waa xisbiga waddani. runtaan idiin sheegayna anaa ka mid ahaa oo ogaa, oo xisbiga ka mid ahaa oo ogaa, oo xogagaal u ah. cidda la dagaalamaysaa waa waddani. waddani waxay kula dagaalamaysaa, waxay u arkaan haddii mouda musabixi keeno inay sanadkan iyo sanadka dambe toona aanan helayn. waana fikir qalada weeyaan. waa wax waddankii u soo kordhay. xisbi awoodle bay noqonayaan. xisbiga labaad ee waddankay noqonayaan mucaarada. kama shaqaynayaan danta dadka reer somalilan. waxay ka shaqaynayaan say kursigan u fadhiistaan. shacabka reer somalilan waa shacab isku mid ah. waa shacabkan iyagaa qolooyinka u samaynaya. wax garxajis la yidhahaa ma jiraan. wax beesha dhex la yidhahaa ma jiraan. waxa weeyaan dadku waa isku mid. waxbay wada doonayaan. midnimay doonayaan. inay calan madax bannaan helaan bay doonayaan. inay dalkooda u madax bannaadaan bay doonayaan. inay beesha caalamka qaybgalaan bay doonayaan. in investmentka waddankooda lagu sameeyay doonayaan. inay baalan yeeshaan bay doonayaan. inay horumar gaaraan bay doonayaan. ma doonayo xisbiga waddani la yidhaha kursiga ayuu doonaya, dalka ma doonayo. muxuu ku doonayaa? example yar baan iminka idin tusayaa, ama tusaale ahaan waxaan idinku soo qaadayaa maalin dhaweyto oo imika ay kasoo muddo bilyan ee xoogahay kasoo wareegatay bishii few weeks aan badnayn ay kasoo wareegteen. niman odayaala oo xisbiga haysta waddani ayaa waxay tageen magaalada la yidhaaho nairobi.
waxay saxaatay waa cabdiqaadir jirde waa maxamuud aadan galaal waa ismaan fadalo iyo nin kale oo aanan magaciisa sidaa u garanayna marka xasuusnayn bal reer somaliland oo nimanka codkeedin weydiisanaya ee xirsi ugu horeeyo waxay sameeyeen baan idiin sheegaya waxay la xiriireen wax ka badan 25 ilaa 27 safaaradood oo nairobi ku yaala waxaanay u qorayeen waraaqo isku mid ah waxaana la galeen mijno gaara nimankaas sida loo bahdilay ee caalamka u bahdilayaan ama safaaradahaas u soo bahdilayaan safiirkana ma arkaan oo ambasadorka ah qusulkana ma arkaan secretarygana ma arkaan dhalinyaro xafiiska ka shaqaysa oo staafka xafiiskaabaa loo soo diraa ilaa midgareeya dadkaasu nimankaasu waxa ay ku hadlayaan ee lagu hayo muuqaal waxa weeyaan dowladdu ma idiin soo gudbinin ee lagu hayo codadkoodii ee hay-adaha nabadgelyada yaalla ee lala sugaayo waktigooda waxa ka mid ah doorasho caalamka waxaanu ka codsanaynaa inaan nala ictiraafin haye doorashadu intay noo dhacayso marka iyo for what reason maxaa ku diidantiin iminka inaad independent qaadataan oo haddii laydin ictiraafayo laydin ictiraafo now waxay leeyihiin xisbiga waddani baa kulmiyaa ku kaambeyn garaynaya waa dood aad u jilicsan nimankaasu xisbiga waddani ahi waxay la kulmeen safaarado aad u badan isku qoraalna way gudbiyeen waxay leeyihiin dib ayaanu haddaanu nahay talada waddankaanu dib ugu noqonaynaa baddayadan la siiyey etoobiya ayaanu ka tashanayna yacni waynu ognahay badad badan baa la kareeyey adduunka o dhan baa karaysan looyaraa gacanta innaga ku haya rag khubraa baa loo diray golayaashoo dhan waa lasoo waraystay shacabka waa lasoo waraystay yani ra'yiga laga qabo waa la isku geeyey markii la isku biiriyey ayaa wixii wax laga soo saaray sharciga aynu kontraga ku gallay okay ma odranayaan intay shacabka soo hor istaagaan oo buciya hargeysiya xaariyadda soo istaagaan kuma dhacaan inay yidhaahaan mouda ma ogolin oo sababta ay sababtaa uma ogolin dad baa loo isticmaalayaa cabdillaahi maxamed cumar waa ninka ka soo shaqeeyey in uu ku kambeyn gareeyo oo nimanka khubarada sheeganaya xisbiga waddani ah uu ka haysto maanta ma aan filay nin kaleba waan ka filaya anugu shaqsi ahaan cabdiqaadir jidde aqoon fiican baanu leeyahay waa oday somalilander ah wakti badan geliyey sidaan u arkayey naftiisa iyo xooggiisa iyo dhaqaalihiisaba geliyey inuu dhismo somaliland oo dal noqdo aad baan uga xumahay inuu qofku si isu bedeli karo oo ninkii halkaa joogay yaan u arkaynay inuu maanta inama yarada maskaxda intay kaxadaan ay nairobi geeyaan secondly waxa dhacday cabdillahi maxamed cumar naga ilahan kuu sheegayaay uu ka yimi wuxuu yimi turkiga that time uu turkiga yimi I was there waan joogay anigu waxaan joogay turkigaan joogay waxaan halkaa markaa joogay 3 days uu joogay waan joogay anyway this guy wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga wuxuu la kulmay chief staffka ciidamada ee turkiga iyo madax kaloo badan ninkaas wuxuu loobin garaynayaa oo uu leeyahay niman yahow annagu haddaanu nahay annagoo ku hadlayna shacabka reer somaliland xisbiga waxaanu nahay ugu aftida badan leh ugu awoodda badan leh mucaaradka ah dadkeyga annagaa og bartaa in la bixiya lama ogola ya turkigow waxaad noo qabataan in aan la saxiixin ilaa waktiga waad ogtihiin oo etoobiya waddanka koowaad ee investmentiga geliya mashaariicda ugu waaweyn ka furay dhaqaaluhu dhex maray waa china waddanka labaad waa turkiga nin kale ayaa cabdillahi maxamed cumar arrimaha noocaas ah ee waaweyn ee dembiyada waaweyn ah ee ka soo horjeeda jiritaanka somalilan waxaa jirta nin ku xidhan oo anigu aqoon wacan aanu leeyahay
oo xamse khayre la yidhaaho oo waktigii hore aan joogayna doorashadii horena maroodijeex gobolka la yidhaaho gabiley ka ahaa campaign manager iminkana ka ah xamse khayraa la yidhaahaa waa nin ay ka soo jeedaan isku degaan ninkaasu isaguna waa ragga mashaariicda yarar haysta ee projectyada waxa la yidhaahaa ama organisationada isticmaalaa waa ninka keliya ee uu ku isticmaalo gobolka layaal gabiley waa xamse khayre ninkaas ayuu ku isticmaalaa ninkaas ayaa ka mida inamada ka qayb qaadanaya burburka somalilan sidii qaaran hore u sheegayba marka anigu waxa igu kaliifayaa inaan waxyaabaha noocana idiin soo gudbiyo inaan shacabka u sheego horaan u sheegay dowladda xiriir lama lihii in yar ka hor waddani baaban ahaa waxa damiirkaygu sii waayay iyagoo doorasha dhacayso ay soo socoto waxyaabaha noocaasa ee aanu ognahay ee dalka lagu wado ragga wada inaanu shacabka ka qarino shacabka reer somalilan waan u digayaa ee foodka bixinaya waa kuwa foodka bixinaya waan u digayaa waxa aan leeyahay war haddaad doonaysaan inay somalilan jirto oo waddanna ictiraafo ay noqoto oo aad horumarkaa ku noolaataan xisbigaa layidhaha kulmiya doorta waayo waxaa jooga askar anigu ma aqaano labada nin midna aqooni malihii midna weligey maan hor fadhiisan waa ninka layaha maxamed kaahin iyo ninka layidhana bixi waa beentay haddaan dhaho aqoon baanu leeyahay umaalihi ma aqaano laakiin waxaan ogahay maadaamaan caalam badan la shaqeeyey maadaamaan waddamo badan oo ka hadlaya intereskooda ah kule soomaaliya somalilan aan la fadhiistay nimankaasu inna meel kama soo galaan in ay somalilan dib u noqoto waxaan xornimada ahayna la dooni maayaan laakiin ragga kale yaan ka soo hadlay iyo qaar kaloo aan sheegi doonaba waxa weeyaan ilmaadeerayaalow somalilan kama dhab ahaa kuwan baynu aragnaa kuwanna aynu ugu ridno intaynu helayno cid kale oo iyaga beddesha oo mowqifka somalilan aaminsan ma anigu xisbigaygii ma eedaynayo ma caayayo waa dad xunxun malihii laakiin kala mabda baan noqon qof kasta oo muwaadin somalilan ah oo waddani ahna waxaan leeyahay waddani wuyna khiyaameeyey war waddani wuydin khiyaameeyey war waddani soomaaliya wuu socdaa war anigaa la shaqeeyey war anigaa informationkooda ka helay haydaha caalamiga ee ay iskaga dhigaan inaanay cidi ogaanaynin war waxaa la hayaa wax kasta oo video ah meel kasta ay tagaan war waxaa la hayaa codadkoodii waxyaabaha kale ee cajiibka ah ee aan la wadaagayo shacabka reer somalilan waxaa ka mid ah musharaxa xisbiga waddani ninka layidhaha ero waxaa dhacday 25 august 2004 wakti maqribnimo ah oo about 7 o'clock ah uk marka la yahay wuxuu ka soo degay airport ku yaala london airportka waxaa ka soo degaa diblomaasiyiinta caalamiga ah maaha airportada waaweyn ee internationalka ah ninkaas wuxuu la socday diyaarad waxyaabaha cajiimka ka yaabiyey newspaperada uk ragga qora reporterska ah waxyaabaha ka yaabiyey waxaa ka mid ah ninkaasu keliga ayuu diyaarad ka soo degay cid ilaahay abuurtay oo la socday ma jirto diyaaraddaas waxay ka soo qaaday finland waxaana keentay airportka ay diblomaasiyiintu ka soo degaan ee ku yaalla london markiiba waa la qaaday hudheel layaa royal line hudheelku xaafaddu hudheelka magaciisa waxaa royal line street ayuu ku yaallaa oo streetka ku yaalo waana hilitonka hudheelkaasa la geeyey waa central london habeenkii markuu soo degay habeenkii ayaanu ka war helnay investigation baanu samaynay kulanku ku jiriyo qolku ku jiriyo ayaanu la kulan ayaanu ogaanay lamaanaan kulina waanu ogaanay waxa dhacday cid ka mid ah guddida saree waddani waa kuwaas way maqlayaane qof keliya soo hadlo hayraa eri waan ogaa bal cid og
oo xisbigiisa ka mid ah lama hayo. waxaa ogaa hal nin oo brograamka la waday oo isaguna aan ogahay dowladda ingiriiska inuu shaqeeyo oo brograamadan la sadabgareeyey oo ay isaga isfaamli yihiin siyaasi reer somalilandna hore u ahaa. ninkaas wuxuu la kulmay next daygii waxaa lagu qaaday gaari madow oo ay leedahay safaaradda turkigu, waxaana lagu geeyey safaaradda qatar. safaaradda qatar markii laga soo baxayna waxaa haddana gaarigii geeyey safaaradda egypt, yani waa masar safaaradda u fadhida halkan. annagu goobjoog maanaan ahayn, laakiin waxaanu la soconnay socdaalkiisa inta meelood ee uu tegey. isla galabadmadii dambe waanu 24 hours gaadhin nairobi buu dhoofa. nairobi wuxuu ka haystay 2 nin oo khabiira ah oo ijib ah, waddanka masar ka soo jeeda ah. nimankaasu sababtuu ka haystay inuu somalilan ka soo dejiyey hawlahay fulinayeen ilaa iyo imkadaa kama hadli karo. waxa yaabaha cajiibka ah ee ka midkaa waxaa ka mid ah baaman buu furay. baamankaa koomada xisbiga waddani wuxuu ku leeyahay gadar, wuxuu ku leeyahay nairobi, wuxuu ku leeyahay turkiga. baamankaas lacag ayay dowladda ugu shubaan. ragga ku qoran baamankii oo la ogaa karo bangi waliba dalka iska leh akoomadooda waxoodoo dhan oo cad oo evidence leh waanu haynaa. ragga ka gadar ku qoran, turkiga ku qoran, nairobi ku qoran, waa horta ragga saa dee u jebinaya qaranka somalilan. qaranka somalilan waxaa leeyahay shacabka somalilan cadowga dibaddana waddanka somalilan wuxuu nasiib ku leeyahay rag badan oo reer somalilan u dhashay oo muwaadiniin ah oo dignity leh oo tallaabo kasta oo ay qaadaan wax kasta cadowga somalilan ahi daba socda ayaa jira. waxaan halkan ugu mahadnaqayaa hay-adaha nabadgelyada, hay-adaha sirdoonka somalilan oo power weyn leh oo adduunka meel kasta oo lays yidhaahdo wax ku yeela qaranka somalilan ka warraya lana socda. waanu mahadnaqayaa. mahaddaana waxaa keenay madaxweyne muuse bixi cabdi oo doortay ragga aqoon-yahanka ah ee caalamka la jaad qaadaya ee experience kale leh ee adduunka ka soo shaqeeyey in u idmado inay ka mid noqdaan ragga hogaamiya securityga waddanka nooc ay tahayba, ama ciidan military ha noqoto, ama ciidan boolis ha noqoto, ama ciidan kale ha noqotoba. aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay, waana u tahniideynaya. waxa kale oo aan caddaynayaa oo shacabka reer somalilan u caddaynayaa anigoo ciise ah emoyadoo dacaysa. informationkaas somalilan kamaan soo ogaan, caalamkan ka soo ogaada. dowladaha ku mashquulsan baan ogahay, hay-adaha ku mashquulsan baan ogahay, organisationada ku mashquulsan baan ogahay sidii ay u dhici lahayd as soon as possibility, sida ugu degdega badan leh. taana waan ugu tahnideynaya shacabka reer somalilan. maalin farxadda baa inagu soo socotaa, maalin aynu gacmaha isqabsanaa inagu soo socotaa, maalin aynu midoonaa inagu soo socotaa, maalin aynu cadowgeena ka adkaan. cadowgeena gudaha ee ugu horreeya wuu jiraa. maxaynu qarinaynaa? maaha reer, maaha qabiil, waa waddani. halkaa waxaad ka arkaysaan inta qof aan ka magacaabay ee ku jira xisbiga waddani ee waddanka wax yeelaya, iyo inta soo socotaaba ninna reerihii ma jirto ama ku qoysi. waa shakhsiyaad ku heshiiye waxan. waxaana loo baahan yahay gacan cusub oo ka hortaga waxan. haddii aad shacab iyo ogaa lahaydeen nimankana dibdaabyada ku hayaan calaamad lahoo orodaan, waad soo dhoweysaan, xisbi qaran baad u aragtaan. ma aha noloshaad diirka kaga saari lahaydeen, waayo waxaad u dhimateen, waxaad higsanayseen, waxaad doonayseen waa kuwa ka horyihin. haddaanay dowladdiinu idiin sheegi karayn, haddii aad leedihiin way dacaydaynayaan,
anagu dowladda kuma jirna de oo mana shaqayno aqoonna uma lihin kuwan baanu leenaha su'aal baa la isweydiinayaa muxuu ciise ilaa iyo intaa u aamusanaa hadduu waxaa og yahay waxaan u aamusanaa maalin baan la sugaayay maalin ayaan la sugaayay ilaah biibalaankooda ugu dambeeya gacantan ku hayaa waxaan la sugaayey maalinaan sooriskoo dhan helo oo aan wax dambe aan dib ugu noqonayn waddani waana today waana idiin sheegayaa fadhiga ka kaca ka hor imaada codoon hasiinina intaasay ay ku dhammaanaysaa dib uma maqlayo generation cusub baa inoo imaanaya oo muwaadiniina waddankeena la ictiraafaya inagoo dowladda isbeddelku ha yimaado isbeddelku ma xuma caalamkao dhan baa isbeddelaya madaxweynaha waa la doortay far baa ku yimi farna waa lagu dhaqaaji karaa laakiin inuu ku yidhahdo ninka qaayina oo midnimadaada ka soo horjeeda oo markii hore ku dhacay oo daradhaa dheer kaa dhistay kambaniyadoodan soo sheegi doona xamar ay ku leeyihiin muqdisho ay ku leeyihiin bal waxaad soo baadhaan Amazon Supply Food Army kambaniga la yidhaha cidda leh ilaa turkiga laga keena alaabtiisa ragga idin horboodaayo ee gaabgaaban baa leh ee ku jira xisbiga ee aan magacyadooda soo wada sheegay ayaa sheer la leh nimanka muqdisho jooga ee madaxda ka ah shacbiga kaca indhihiina fura qabyaaladda iska daaya wadannimada ku noqda jiritaankiina ku noqda ma aha dadkan waddadaynu aamini karno annaga ayaa waqtigaygii qaateen qarashaygii qaateen tamkaygii naga qaateen qasaarownay siinaan u qasaaroobin idinka khasaaro kaleba idinku dhici maayo codkiina ha ku qasaaroobina ha qasaaroobina codkiina ha ku qasaaroobina ka fooda intaa keliya ha laydinka baahan yahay independentna waad noqonaysaan memoydiina insha allah waa la seexaya madaxweyne biixi wuu seexaya wassalaamu calaykum waraxmatullah waa hagaag daawadayaal qaybtana intan ay ku eg tahay qaybo kale ayaan isugu iman doonaa ciise maxamed yuusuf uu kaga hadlayo shirqoollada iyo dabinada xusbiga waddani uu maleegay qaranka somalilan ee hadda amba hore ugu soo maleegay amba hadda uu ka howla yahay ciise waa xubin sare oo xilal ka soo qabatay xusbiga waddani dhowaanna iska casilay xilkaasi intaynu qaybta saddexaad isku iman doonna waxaan idinka teginaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu